runtii waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan Hiil Shacab TV. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo dowladda federaalka Soomaaliya uga digay in ay ku qasabto shacabka Soomaaliyeed in mar kale ay hub ka qaataan. Puntland iyo Jubbaland oo ka hadlay hadal ka soo baxay aqalka sare iyo Puntland oo shuruud gaar ah ku xirtay ka qaybgalka shirkii uu ku baaqay golaha aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Guddoonka sare ee golaha aqalka sare oo u muuqda in uu laba qayb u kala qaybsamay marka loo eego shirar la iclaamiyay iyo sida ay wax u socdaan. Madaxweyne Lafta Gareen waxa uu mar kale beeniyay hadallo la isla dhex marayo isagoona sheegay in gogol nabadeed ay fidsan tahay magaalada Baydhabo. iyo wararkii ugu dambeeyay safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho oo fariin degdeg ah u gudbisay Villa Soomaaliya. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Warkii oo dhan aynu ku horeyne maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa waxa ay ka hadleen go'aan ka soo baxay aqalka sare oo ku saabsan in wada hadal ay yeeshaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xilli khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada qaarkood oo ay ugu horeeyaan Puntland iyo Jubbaland muddooyinkan uu ahaa mid saameyntiisa laga dareemay siyaasadda Soomaaliya. Puntland shuruud adag ayay ku xirtay ka qaybgalka shirkii uu ku baaqay aqalka sare ee dalka Soomaaliya oo matala guud ahaanba dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedka Puntland ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay uga hadashay mowqifkeeda ku aadan shirkii uu ku baaqay gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya in uu dhex maro madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. Puntland ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso shirkaas diyaarna u tahay inay ka qayb gasho balse waxay ku xirtay shuruud ah in la qabto ka hor 20ka bishan haddii ay dhaaftana aysan iyagu ka qayb gali doonin. Puntland waa ay soo dhaweynaysaa baaqa aqalka sare ee in la qabto shirka wadatashi iyo in aqalka sare guddi u qabteen qabashada shirkaas. Puntland waxay ku baaqaysaa in shirka la qabto ugu dambeyn June 20keeda 2020. Dowladda Puntland waxay cadeynaysaa inaysan qayb ka noqon doonin shir wadatashi ah oo qorsheysan kadib dhageysiga baarlamaanka federaalka ee guddiga doorashooyinka ee 27 June 2020 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland. Puntland ayaa sidoo kale eedeysay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ay ku eedeysay in ay si ku talagal ah u marin habaabinayaan qabsoomidda doorashooyinka iyagoo xeerinaya dano gaar ah iyo isku day ay doonayaan in waqtigooda ay ku kororsadaan. sidoo kale waxaa lagu dhaliilay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya inay ka shaqeynayaan qas siyaasadeed iyo mid amni oo ka dhaca deegaanada maamulada dowlad goboleedyada taasina ay tahay mid Puntland ay digniin gaar ah ka bixinayso. dhinaca kale maamulka Jubbaland oo ay aad isugu xun yihiin dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa soo saaray hadal ku saabsan hadalka ka soo baxay guddoonka sare ee aqalka sare ee Soomaaliya oo ku saabsan inay wada hadlaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Jubbaland ayaa qoraal ay soo saartay uga hadashay fashalkii ku yimid shirkii dhawaan fashilmay ee dhex maray guddi ka kala socday Villa Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. qoraalka Jubbaland oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa si cad loogu eedeeyay madaxtooyada Soomaaliya inay mas'uul ka ahayd fashilkii ku yimid kulamadaas oo la doonayay in lagu diyaariyo kulan dhex mara madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada. qoraalka ka soo baxay Jubbaland ayaa waxa uu dhigan yahay dowlad goboleedka Jubbaland waxay si weyn u dareensan tahay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. dowlad goboleedka Jubbaland oo ka duuleysa hadafkaas waxa ay aqbashay inay ka qayb gasho guddi uu dalbay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay diyaariyaan kulamo looga tashanayo masiirka dalka maadaama lagu jiro xilli xasaasi ah. sidaa daraadeed dowlad goboleedka Jubbaland waxay ka qayb gashay 3 kulan oo looga areensanayay qaabka ugu habboon ee lagu qaban karo shirka wadatashiga ee madaxda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya.
waxaa nasiib daro ah in shirarkaas kor ku xusan oo uu hogaaminayay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka ah aan wax natiijo ah laga gaarin la iskuna waafaqi waayey waqti iyo goob kulanka lagu qabto. waxaa kale oo wax laga xumaada in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka oo ay ahayd inay si joogto ah u kulmaan aanay muddo 2 sano ah kulmin, sidaana ay ku dayaceen howlihii ummadda loo hayay. dowlad goboleedka Jubbaland oo ka duuleysa xaqiiqooyinka kor ku xusan iyo xaaladda cakiran ee uu dalka marayo oo aan laga gaabsan karin waxay soo jeedinaysaa qodobada soo socda ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweyne Axmed Madoobe. kow in ay shaqeyn waayeen xogaayihii loo igmaday qabanqaabada shirka wadatashiga madaxda, sida daraaddeedna Jubbaland aanay ka qayb ahayn shirarka aan natiijaba ka soo bixin. in ay bogaadiso hadalkii ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ka sheegay golaha wasiirada, hadalkaas oo ku saabsanaa muhiimadda ay leedahay in doorasho la wada ogol yahay waqtigeedana ku qabsoonta ay Soomaaliya ka dhacdo. 3 in ay bogaadiso go'aankii gudoomiyaha aqalka sare uu isugu yeeray guddiga joogtada ee aqalka sare si ay uga tala bixiyaan tubta ugu habboon ee lagu xalin karo khalkhalka siyaasadeed ee ka dhalan kara doorasho heer qaran ah oo aan habraaceeda lagu heshiin. waxaan taageero buuxda siinaynaa go'aankii ka soo baxay kulankii guddiga joogtada ee aqalka sare ee qabsoomay 9-ka bishan. go'aankaas oo ahaa in shir wadatashi qaran oo degdeg ah la isugu yimaado inta ka horeysa 25-ka bishan Juun. 5 waxaa dhammaan maamulada dalka, hay'adaha kala duwan, xisbiyada siyaasadeed iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in laga wada qayb qaato xasiloonida iyo midnimada dalka. 6 waxaan bogaadinaynaa kaalinta habboon iyo garab istaaga joogtada ah ee beesha caalamku la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa u muuqata in dowladda federaalka Soomaaliya ay weli ku dhaliilayso nidaamka ay u wajahayso in doorasho dalka ay ka dhacdo. dhinaca kalena isla wararka xasaasiga ah ee doorashada la xiriira ayaynu ku guda jirnaayay. Xasan Sheekh iyo weliba Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxay ugu baaqeen madaxweyne Farmaajo inuusan ku qasbin shacabka in hubkooda ay qaataan. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga digay madaxweyne Farmaajo inuu shacabka ku hogaamiyo inay hub u qaataan dowladda Soomaaliya. Xasan Sheekh ayaa u sheegay Farmaajo inuusan taariikh xun ka tagin oo dhibaato dalka ka dhacda taariikhda loogu qorin in isaga uu hogaamiyay oo bari la yiraahdo wixii maalintaas dhacay isaga horseeday. madaxda dalka waxaan leeyahay ha suginina maalinta shacabku idinka hor imaanayo. 30 sano kuwa dalkan soo xukumayay ayaa barqacad jidka lagu diray, waxaana u soo jeedinaynaa dowladda raggaas xabadda lagu ridayay yeysan isku kalifin inay iyagu xabad ku ridaan shacabka. sidaa daraaddeedna Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay madaxweyne Farmaajo in uu xal la yimaado isla markaana aysan xal ahayn nidaamka uu iminka ku socdo. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Farmaajo aysan marnaba uga aamusi doonin wixii saxda ah, wixii dandara ah ee laga aamusi karin waa inaan ka hadalnaa, wixii gaf ah lagaga aamusi maayo, wixii qaanuun ah oo aan ku heshiinay lagu deyn maayo, lagagana aamusi maayo ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale sheegay in lagama maarmaan ay tahay in maqaamka ummadda Soomaaliyeed la ilaaliyo isla markaana waxyaabo fara badan oo meel wanaagsan marayay tan iyo markii madaxweyne Farmaajo uu xafiiska yimid ay fashilmeen, sida Somaliland iyo maamul goboleedyada xiriirka kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu iminka sheegay in ay iyagu ka go'an tahay in doorashada maalinna aan loogu darin. xildhibaan cusub leh oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa isaguna sheegay in hal maalin xukuumadda aan loogu dari doonin, haddii ay taas dhacdana wixii dhacaa ay iyagu mas'uuliyad gaar ah qaadi doonaan. war degdeg ah oo iminka Kismaayo naga soo gaarayna waxa uu sheegayaa in qarax khasaare geystay uu ka dhacay Kismaayo, dadna dhibaato ay ka soo gaartay. warar laga helayo Kismaayo ayaa sheegaya in xalay qarax loo adeegsaday bam gacmeed uu ka dhacay bartamaha magaalada. qaraxa ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay suuqa lagu magacaabo Golole oo ku dhow aargada weyn ee Kismaayo, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah.
ugu yaraan 1 ruux ayaa ku dhintay qaraxaasi iyadoo ay ku dhaawacmeen 11 kale sida ay noo xaqiijiyeen laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland. dadka ay waxyeelada soo gaartay ayaa waxa ay isugu jiraan ganacsato iyo dad kale oo halkaasi ku sugnaa. ilaa haatan lama oga sababta loo bartilmaameedsaday goobtan ay shacabka isugu yimaadeen, laakiin arrintan ayaa waxay ku soo aaday xilli ay muuqato in Kismaayo muddooyinkii ugu dambeeyay ammaankeeda ay ka soo reynaysay. ugu dambeyntiina guddoonka aqalka sare ayaa u muuqda in laba garab ay u kala jabeen marka loo eego ololihii ugu dambeeyay ee la isugu keenayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo aqalkaasi oo hormuud u yahay. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Senator Mawlid Guhaad ayaa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi ku eedeeyay xadgudub ka dhan ah xeerarka u degan aqalka sare. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ayaa gudoomiyaha golaha Cabdi Xaashi ku eedeeyay in shirkii guddiga joogtada ah ee aqalka sare uu ku qabtay qadka muuqaalka ee Zoom-ka loo yaqaano, iyadoo sida uu sheegay ay ahayd in shirkaasi uu si toos ah ugu qabto xarunta aqalka sare. shirka guddi hoosaadka ayaa laga soo saaray qoraalkii madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ugu baaqay in shir degdeg ah ay isugu yimaadaan 25 bishan. xalay saqdhexe ayuu gudoomiye Cabdi Xaashi isoo diray xogayaha aqalka, wuxuuna isoo faray in kulankii lagu balansanaa inuu ka dhaco xarunta loo weeciyay dhinaca Zoom-ka, waana ka diiday. gudoomiyaha haddii uu arrimahan ku sii fara adeego wixii dhacaa isaga ayaa mas'uul ka noqon doona, ayuu u sheegay warbaahinta. tani ayaa u muuqata in uu khilaaf soo kale dhex galay guddoonka sare ee golaha aqalka sare, iyadoona khilaafkan ilaa iminka saameyntiisa laga dareemayo gudaha magaalada Muqdisho. warkii oo aad kala socoteen Hiil Shacab TV waa naga intaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Hiil Shacab TV waxa uu ku tiirsan yahay waa taageeradaada.